الرحمن الرحيم كنت عن صاحب يركسو لوهذا شكلي تحنا هاي عضبي شيكدا waxaa qoray Libaan Axmed Ciise Abwaanka waxaana idin la socodsiinaya anigoo Cabdinaasir Axmed Xasan Xiile iyo Mase Fantastic qaybta afraad ee sheekada waxaan ku kala tagnay anigoo leh ma ahayn wax laga tagi karo minaha dhirta saaran ma ahayn wax la qooromiida ka daaysa cudbi dhowrgeed ayay sacaabada ka buuxsatay waa macaan lagama tagi karo inta ay lahayd kan gooso ayaa geed u dhawaa waxaa uga soo baxay libaax oo xalay qof xoolo iyo ogaal miday tahay mooyee soo cunay qaarka horeyna dhiig ku leh miciyuhu qarqaroofan yihiin baahida haysta darteed dhareerku ka socdo libaaxii iyo cudbi ayay noo maraysay haatanna ku soo dhowaada qaybtii shanaad ee sheekada cudbi oo halkeedii nooga sii socota libaaxii iyo cudbi ayaa iscidlaystay xijalada shimbiraha iyo ariga mooyee cid kale meesha kama dhawaaqu meel dheer ma gaarayo oo waa hawd geeduhu ku badan yihiin waana dooxo oo dhagax la qaado ma leh cudbi rabbiyow ii badbaadi ayay carabka ku adkaysay carabna kama gaartee waxay istiri baldhako ama dhuumo oo waxay sheeko ku maqli jirtay libaaxa ninka ahi hablaha ama haweenka hiilka u baahan ma cuno waa sacayn kale libaaxu waa libaax dhadig waxa ayna goosha u soo gaatantay iyada oo dhareerka uga socday inay galabta gabar gacanta ugu jirto dhulka ayay ku galgalatay gooshii si ay cabsi gelin iyo jahwareer ugu rido cudbi nasiib wanaag libaaxii waxa uu sanka la raacay baaruud ama se shayr qori saaxiibka dhabta waa kan marka aad u baahan tahay ku soo garab istaaga marka masiibada iyo dhibka lagu jirana kula qaybsada hadduu rabbi ku beego maxamed dheere muuse waran leh oo markii hore ariga toonta ku soo hagaagay u jeeday geelna u daaqayo meel aan hawdka ka fogeyn qorina garabka u saaran yahay ayaa soo aaday ariga dhankiisa si uu ugu sheego qofka ariga la jooga meesha inay bahalla badan tahay arigana dhanka kale u ragto maxamed ayaa ku soo beegmay gool libaax iyo gabar hal goob wada taagan markiiba ma uusan garan in gabadhu cudbi tahay laakiin waxa uu madaxa geliyey in gabadhu gacan libaax ay ku jirto waxa uuna isku waajibiyey badbaadinta gabadha markaas oo laba xabadood uu ku dhuftay gooshii oo dhulka ku gelgilatay geeri horteed cudbi oo fadh iyo food dhidid qooyey iskuna diyaarisay cunista gooshi libaax ayaa ka sii dartay marka ay maqashay dhawaqa xabadaha waxayna si madaxa ugu dhacday geed dhafaruura oo horteeda ku yaalay miirka ayaana ka tegay maxamed dheere marka uu hubsaday geerida gooshi libaax ayuu u soo dhaqaaqay dhinacii gabadha laakiin goobtuba waa cidlo oo cambaar markuu meelaha ka daydayey una maleeyay gabadhii inay carartay ayuu meel indhihiisa ku beegan uga jeeday gabadhii oo geed madaxa kula jirta allah waa inantii ayuu yidhi kadibna dhinaceeda ayuu u soo dhaqaaqay si uu geedka uga soo saaro kadibna si taxadar iyo foojignaan ku jirto ayuu bannaanka u keenay waaba cudbi oo xaalad aan caadi ahayn ku jirta maxamed dhankiisa markaan kantaroolkii ayaa ka lumay waxa uu ka sii waayey meesha uu joogo cidda uu la joogo iyo sababta uu halkan u yimid waa uu dawaqmay waxa uuna sii daayay cudbi oo markii hore uu kor u hayay taasina waxay sababtay inay soo naaxdo cudbi oo markii hore miir la'ayd naxdin darteedna wadnuhu la boodboodayo laakiin wax walba waxay isbedelay markay aragtay qofka hortaagan inuu yahay maxamed dheere muuse macow waran leh waxaana qalbigeeda ku soo xaadiray labalaab naxdintii ay hore u dareemaysay farxad la'eg indhaha ayay marmartay si ay u hubsato qofka hortaagan inuu maxamed yahay balse markii ay u caddaatay inuu maxamed yahay ayay jabsatay qosol gariir farxad iyo ilin ah mid cabsidii ka keentay wax yar kadib markii ay kayrar goysay libaaxiina aragtay inuu dhintay ayay bilowday sheeko iyo cabasho isku darsan oo ay maxamed dheere u warinayso iyo eedeyn ku aadan sababta uu intaasi uga maqnaa waxayna isku dartay
farxad qosol wadata iyo qaylo canaan wadata maxamed dhankiisu waxa uu noqday jismu xaadir qalbi qaalib oo macnaheedu yahay qalbi maqan iyo qolof joogta oo khudbadda cudbi ay jeedinayso madaxiisa ma gelayso la yaab ayay ku noqotay sida ay wax u dhacayaan iyo nasiib xumada cudbi la kulmisay mar waa farxad oo cudbi oo cado cuni rabo ayuu ka badbaadiyey marna waa naxdin oo gabadha aabihii calmaday isna uu doonayay inuu ka calool go'o ayaa si aan caadi ahayn oo la kulmay in muddo markii warka cudbi iska wado maxamedna uusan wax war celina uusan samayn welina aysan cudbi wajiga maxamed wax ka dareemin ayuu maxamed go'aansaday inuu goobta ku cadilayo cudbi oo aan weli dardarankii dhammaysan welina u hamuun qabta inuu asaga la sii joogo una caddeeyo waxa kale irdheeyey cudbi waxay bilowday inay ciidda xarxariiqdo si ay cabashadeeda cidlada ay dareemayso iyo codsiba ugu jeediso maxamed dheere laakiin maxamed oo foorarsiga cudbi ka faa'iidaystay ayaa jaanis u helay inuu ka dhaqaaqo cudbi oo madaxa kor u soo qaaday ayaa aragtay maxamed oo meel aan saas uga fogeyn sii socda iyo gooshii libaax oo baktiya u ag taalla markaas ayay ka daba dhawaaqday maxamed iyadoo leh maxaa kaa qaldan waa aad igu jawaabi la'dahay waa maxay isbeddelkan balse maxamed ayaa yidhi cudbi walaal mar kale ayaan sheekaysan doonaa hadda libaaxa ayaa geela ka coshan rabaa adigana ariga bahalka ka celi sidaas ayay ku kala tageen maxamed dheere oo cudbi wax xoga aysa ka helin kugu tirsana cadata geeradiyo taxliishii kala tagee tolow xilliba ku nici taxliishii kala tagee tolow xilliba ku nici dhanka kale oday guuleed waxa uu hamiin cilaliyo u ah xoolaha badankoodna ay soo xaroodeen dhowkaalna awrta reerka uu doonay si uusan libaaxa u cunin odaygii cidduna ee cali salaad uu weli xaafadda ka maqan yahay tan iyo dagaalkii islaantiisa xareedo markii ay murmeen ayuu guuleed la soo wareegay ardaaga amase goobta dabka lagu shido oo ay xareedo fadhido oo markaas ku howlan cunto karin iyadoo qaadaysa hees howleed aad u macaan gacal kala maqnaan jiray iyo geelo way ololaan ma la soo aruuray nabad iyo marxabayn ayaa la isla galay xareedo intaa kadib waxay guuleed gogol u fidisay gole aad loo habeeyey oo martida iyo dadka xigaalka ah ee reerka u soo martiya loogu talagalay orgiyar oo kaldambeedkii dhashay oo dhaylo hilib macaana magaca alle ayay birta ku boobsiisay casho markaas dabka saarnayd iyo caano barxoor yahay oo ay la soo boodayna barkinta ayay u soo agdhigtay odaygii ciddu caawa waa maqan yahay cambaar naso hadhow markaan howlaha soo agaasimo ayaan sheekaysanaynaa ayay u raacisay xareedo cudbi dhinaceeda dhibkii weynaa ee ka soo gaaray libaaxii iyo dhawaaqii rasaasta oo aan cidna la wadaagin ayaa meel saas ugu dhacday oo habeenkaasi wax shaqaa ma aysan qaban hooyana way u garaabtay xareedo waxay ka wardhowraysay dhawaaqa ka soo yeeri doonaa oday guuleed oo aysan weli si fiican isku waraysan sidoo kale waxaa jiray fikir ay dhowaanahanba la riimaysay oo ahaa in dhuunkaal iyo cudbi mid kasta ay wax u sheegto waxaa soo yeeray doobadar si dhowaan qooqay oo awrta u horreeya waa dayax gaaban guuleed oo daalkii maanta dhaqsi gamay ayaa ku kacay culayska awrta oo meel u dhow dhuunkaal soo tubay dhuunkaal markii uu awrta soo dabray ayuu soo agmaray golihii martida arag in la jiifo mana ogayn aabbihii inuu joogo reerka caawa laakiin kuma leexan qofka jiifa
oo waxa uu ku degdegayay inuu soo arko cudbi oo uusan maantoo dhan arkin markii uu indhaha saaray cudbi waxa u xigay dhawaaqa xareedo oo warinaysa in aabihii jiifo golaha uuna soo salaamo dhuunkaal ayaa ku weecday golihii waxa uuna farxad iyo qosolgariir la ag fadhiistay aabihiis salaan dhukasho iyo madax ka taabasho kadib si saamiya ayuu u garwaaxaystay guuleed si uu dhuunkaal gudaha u geliyo sheeko uusan asagu markaasi meesha ka filanayn dhuunkaal imaashaha aabihiis guuleed waxay la noqotay qodax ku taagneed oo ka siibatay waxaana sababay arrin uu markii hore meel ugu dhaqaajiyo iyo cid uu la kaashado uu waayey haddase imaanshaha aabe nabar ka fuqay ayay noqotay waxaana uu is yidhi la kaasho sida aad ku heli lahayd cudbi waana sidaa asagu xaajada u qaatay oday guuleed ayaa ku bilaabay wiilkaygiiow guurka waad ka daahday adigu guursa weydaye anaa waajibka aabanimo gutay kuna guurinaya gabar geli aan ka bixi lahaana waan diyaariyey dhuunkaal oo aan weli ogayn in aabihii gabar horey ugu doonay ayaa niyadda keligiis ka qoslay waxa uuna qaadan kari waayey jaaniska iridda u soo gargaraacay waxaa la joogaa xilligii aad warkaaga u caddayn lahayd aabbaha cid garab ku siisa ayaad caawa heshay u caddee wax walba ee niyaddaada ku jira odayga ayuu niyadda keligiis iskala hadlay oday guuleed oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi ma taqaanaa oday guhaad ninkii aan odwadaagga ahayn haa aabe waan aqaanaa gabadhiisa caasho waa gabadha kuu doonan geeli yaradka ahaana waan sii bixiyey isdiyaari wiilkaygiiow birina waan baxaynaa iyo ereyo kale oo loo riyaaqo ayuu guuleed wiilkiisa ku yidhi horay ayaa loo yidhi hasha labada geel jecel dhexdooda ayaa ruwaa ku cunaa dhuunkaal warka aabbihii ma gees mari karo caashaqa cudbi uu qabana ma caasin karo mawjad kale oo jahawareer ayaana la soo deristay inta aysan weli kala bogan waxaa xeero hiliba la soo kor istaagtay xareedo oo iyadu xitaa doonaysa in arrinta cudbi iyo dhuunkaal ay kala hadasho guuleed dhuunkaal oo hadalkii aabihiis cirka iyo dhulka la warwareegayo ayaa markii habaryartii soo kor istaagtay ku booday kuna yidhi habaryar aabe inta haynoo joogto qaybta shanaad la socda qaybtii lixaad ee sheekada cudbi libaan axmed ciise abwaanka ayaa sheekada qoray cabdinaasir axmed xasan xiire ee masar fantaasiga ayaa idinla socodsiinayey intaan ku kulmi doona qaybta tan xigta nabadgelyo